إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. السلام عليكم جاليال soo dhowaada waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maantana waxaan dul istaagi doonaa dalka Turkiga iyo xaqiiqooyin laga yaabo in aadan ka aqoon dalkan uu hogaamiyo madaxweynaha mayalka adag ee ku guuleystay qulubta shacabkiisa Rajab Tayyip Erdogan. haddaba ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta iyo dhextaalka janalkaba. sida rasmiga ah waxaa loo yaqaanaa jamhuuriyadda Turkiga iyadoona ahayd xaruntii khilaafadii Cusmaaniyiinta ilaa iyo 1922 markaas oo Mustafa Kemal uu dibadda u taagay jamhuuriyadda Turkiga ilaa haatan jirta. waddanka Turkiga waa waddan qadiimi ah. jamhuuriyadda Turkiga jiho ahaan waxa ay dhacdaa waqooyiga Aasiya ilaa iyo koonfur bari Yurub. jamhuuriyadda Turkiga waxa ay ku taallaa laba qaaradood ee Aasiya iyo Yurub. inta badan dhulka jamhuuriyadda Turkiga waxa ay dhacaan qaaradda Aasiya. Turkigu waxa uu xuduud la wadaagaa 8 waddan. dhanka koonfureed waxa ka xiga Syria iyo Ciraaq, halka waqooyi uu ka xigo waddanka lagu magacaabo Gariiga. waxaa bariga ka xiga wadamo ay ka mid yihiin Iran, Armenia iyo Azerbaijan. dhanka galbeedna waxa ka xiga waddanka Bulgaria. jamhuuriyadda Turkiga waxa ay soo martay 4 afgambi oo kala ahaa 1960, 1971, 1980 iyo 1997. waddanka Turkiga waxa uu kaalinta 37 kaga jira wadamada ugu badka weyn caalamka, waxaana 3 jiho kaga wareegsan bad. dalxiiska waa tiir ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan dhaqaalaha Turkiga, waana dawladda tobnaad ee dalxiisayaasha ugu badan hantisa. waxaa loo doortay 6 jaamacadood oo ku yaala Turkiga inay ka mid yihiin 500 ee jaamacadood ee ugu fiican adduunka. waxa ay gaarayaan inta waxbaratay ama aada goobaha waxbarashada 93%. kuwa aanan waxbaran oo ragga ah waxay gaarayaan 6%, halka dumarku ay gaarayaan 18%. waxaa lagu tiriyaa Turkiga dalalka ay ku yaalaan suuqyada ugu qadiimisan caalamka, waxaana Istanbul ku yaala suuqa Kabalıkarsi isagoo ah mid lagu tiriyo suuqyada ugu qadiimisan caalamka. waxaana la aasaasay suuqan sanadkii markuu ahaa 1455, waxaana aasaasay Cusmaaniyiintii kadib markii ay furteen magaalada Qustandiniya ama Istanbul. Istanbul waa magaalada ay ku nool yihiin shacabka ugu badan dalkan, waana magaalada kaliya ee dhacda 2 qaaradood oo ah Aasiya iyo Yurub. waxa ay sidoo kale caasimad u ahaan jirtay 3 imbaradoriyadood oo aad u falweynaa sida Roomaankii, dawla Bisandiniya iyo Cusmaaniyiintii. Ankara waa caasimadda jamhuuriyadda Turkiga tan iyo sanadkii 1923, mana ahan Istanbul caasimadda Turkiga sida ay dad badan aaminsan yihiin. khadka tareen ee Istanbul lana dhisay 1875 kuna yaala xaafadda Biyoglu waa midka saddexaad ee ugu qadiimisan caalamka marka laga yimaado khadka tareen ee London iyo New York. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa muuqaalkeena maanta oo xambaarsanaa warbixin kooban oo dalka Turkiga ku saabsan. waxaana idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdullaahi Xareed Ciid Mishcal. fadlan haddii aad tahay daawade ku cusub janalkan, subscribe saar, like nagu dhiirigeli, riix calaamadda gaambaleelka si muuqaal kasta aan soo gelino durba kuu soo gaaro. mahadsanid.